isku soo noqod wanaagsan daawadayaal imika waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddii aynu ku bilowno wasaaradda qorsheynta ee sidoo kale dawladdu u qaabilsan dhanka maalgashiga ayaa waxa ay juhdi ku bixinaysaa sidii ganacsato heer caalami ah oo maalgashi sameynaya lagu soo xili lahaa magaalada Muqdisho inkasta oo uu taagan yahay mashaakilka amni haddana sidaas oo ay tahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay juhdi ku bixinaysaa sidii indhaha caalamka gaar ahaan maalgashatada loogu soo jeedin lahaa caasimadda Soomaaliya sidoo kale wasaaraddu waxa ay kulan arinta looga hadlay ay la qaadatay ganacsatada Soomaaliyeed oo iyaguna door ka qaadan karaya sidii dalka loo keeni lahaa ajaanib maalgashato ah Haajir Cabduqaadir ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho shirka wada tashiga horumarinta maalgashiga qaranka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dalka gaar ahaan xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka ayaa marba heer maraya iyadoo laga talgeliyay hay'adaha dawlad goboleedyada iyo aqoon-yahanka kulanka maanta waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed waxaana diiradda lagu saaray kaalinta ganacsatada iyo sidii dalka loogu soo jiidi lahaa maalgashi caalami ah ka qaybgalayaasha ayaa aad ugu dooday iyadoo lagu soo bandhigay istiraatiijiyada maalgashiga qaranka ganacsatada ka qayb galay ayaa kulanka wada tashiga ee lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka ka aragti dhiibtay waxaana uu hadlay Ciise Maxamuud Xalane oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxyaabaha ugu fudud hadda macna lagu sii horumarin karo ama looga sii hortagi karo waa horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka dadka iyo tabcan deegaanka oo imaanayo sektarada fara badan oo kala gedisan oo xoolaha ay soo galayaan beeraha ay soo galayaan badda ay soo galayso hawada ay soo galayso in fara badan ay soo galayso marka waxaan leeyahay alxamdulillah waa soo dhaweynaynaa barnaamijkan plankan sagaalaad ee dawladda ay wado waana ku faraxsanahay in aad iyo aad inta ka soo qayb gashay marwada salaamu alaykum ugu dambeyntii agaasimaha xafiiska maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Xasan Farax ayaa sheegay inay muhiim tahay in la maalgashado dalka anagoo si guud ahaan u fiirinayna horumarinta guud inaan ka qayb qaadanayno isna si gaar ah awoodda dalkan uu leeyahay oo maalgashiga gaarka loo leeyahay ay tahay inaan horumar uga dhigno horumarka dhanba oo dhahano haddii ganacsiga yaryar haddii ganacsiga la xoojiyo haddii saan la sameeyo baa ka muhiimsan ama saboolnimadana lagu baabi'i karaa amniga wax looga qaban karaa dalka isku xirkiisa iyo horumarkiisa wax looga qaban karaa haddana waad maqlaysaan oo dood waxaba socotaba waxa la yiraahdo regional economic integration marka dawladdii baa la weydiinayaa maxaa priority-diisa seeba la wajahaysaa waddamadee baad dareenaysaan ama maxaa see waxayna kala qaban karnaa Haajir Cabduqaadir RTN TV Muqdisho